waxaa maanta garoonka diyaaradu ka haadaan kuna soo degaan magaalada Laascaanood la soo cagdhigatay diyaarad sidii wafdi balaaran oo horkacaya Iimaan Maxamed Imaam Yuusuf oo ka soo kicintay caasimadda dalka Soomaaliya Muqdisho waxaana socdaalkan imaamka ku weelinaya salaadiin caan ka ah koonfurta Soomaaliya oo kamid ahaayeen Ugaas Xasan, Ugaas Maxamed, Ugaas Nuur, Ugaas Faarax Cabdi Sheekh, Ugaas Cabdiraxmaan, Ugaas Cabdilaahi sidoo kale Ugaas Axmed Rashiid waxaana ujeedka socdaalkan wafdigan ahaa ka soo qaybgalka munaasabada Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo 30 bisha haduu Alla ka qabsoomi doonta balliga balli barwaaqo ee duleedka magaalada Arcade ee gobolka Sool waxaana wafdidan ku soo dhaweysay garoonka diyaaradaha uqaashay waxgaradka gobolka Sool waxayna sheegeen in ay ku faraxsan yihiin in isma iyo waxgarad ka socda koonfurta Soomaaliya ay soo gaaraan magaalada Laascaanood tan iyo intii ka dambeysay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya ما شاء الله تبارك الله دياردي باي نو تيمي وفد aadu culus baa inoo yimi insha Allah taala waxa inoo yimi gobolka Sool hadaan nahay wafdi balaaran oo midna ka yimi Banaadir midna ka yimi gobolada dhexe way kala hogaaminayaan Imaam Maxamed Yuusuf imaamka Hiraab iyo Ugaas Xasan Ugaas Maxamed Ugaas Kacayd ay hogaaminayaan oo labada gobolba ka kala yimi uqaashi koonfur salaadiintii koonfureed cid kama maqna qabiil kasta halkan waxa diyaar idinku ahaa ilaa iyo saaka subaxnimadkii hore odayaashii iyo waxgaradkii iyo culimadii iyo dhalinyaradii gobolka Sool dhammaantoodba waxa idinku soo dhaweynayaan qalbi furan iyo niyadsan ku soo dhawaada gobolka Sool waxa timaadeen gobolkiinii labaad walaalihiin baad u timaadeen aad iyo aad baanu idinkaga mahad celinaynaa sida sharafta leh ee qiimaha leh ee aad u ajiibteen martiqaadkayagii aanu idin fidinay haddaanu nahay gobolka Sool oo ay ku saabsanaa caleema saarka suldaanka Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed wafdiga ku yimi gobolka Sool magaala madaxdiisa Laascaanood ku soo dhaweynaya si niyad leh oo walaalnimo waxaanu idinku soo dhaweynaynaa nabad iyo barwaaqo waxaanu idinku soo dhaweynaynaa garoomada ugu qaalisan garoomada Soomaaliya inta af Soomaaliya ku hadasha waayo garoomada iyadu maaha kuwa roogaga la dhigo waa kuwa geeloodu daaqo ee caanaha lagaga maalo ee bulshadu dhex marto waa kuwa nabadgelya wafdiga uu hogaaminayo Imaam Maxamed Yuusuf iyo Ugaas Xasan Ugaas Maxamed ee ka yimi Banaadir iyo gobolada dhexe waxa timaadeen gurigiinii labaad haddii aad warar kale hayseen oo Sool ka hayseen waxaanu anagu maanta u aragnaa caasimadda Soomaaliya oo dhan inaanu ka qaalisan Iimaan Maxamed Imaam Yuusuf oo wafdidan ka timi koonfurta Soomaaliya horkacaya ayaa ka maadnaqay soo dhaweynta balaaran ee lagu sameeyay gobolka Sool nuuc walba leh oo gobolkan Sool haddii alla yiraahdo aniga horta maanta igu horeysa joogto aad u mahadsantihiin ugu soo dhaweysay aniga iyo salaadiintayda Hiraab ma hogaamiyo haya hawiyaan hogaamiyo haya ma garatay waxaan ku soconaa anaku hawiye waxaan ka soconaa koonfurta meel dheer aan ka nimiday duubka suldaankan u nimiday haddii alla yiraahdo waxa wahay gacanta gogeeda u soo waqtayaan nahay haddii alla yiraahdo waxaana keentay xamaasad haddii meel dheer aan ka nimiday waana mahadsantihiin soo dhaweyntiina gobolka iyo meesha lagu duubi doonaa wixii wara ku dhameystira doonaa haddaana anigoo la dhahayo Soomaaliya ugu baaqayo nabad oo ugu baaqayo colaadda ilaahay ka joojiyo oo diyaarina alla nasiyo suldaankan waxaan ka rajaynaa ilaahay idankiisa suldaanka roobka oo barwaaqada in alla nooga dhigo marka wixii war waa noo dambeeyaan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi intaasi kadib waxa wafdidan loo soo gudbiyay gudaha magaalada Laascaanood waxaana lagu soo wareejiyay shaaricida waaweyn ee magaalada ugu dambeyntiina waxa loo gudbiyay Hotel Xamdi iyadoo la geeyay qolka nasashada ee hotelkaasi hadalhaynta badan magaalada Laascaanood iyo gudaha gobolka Sool waxay ahayd caleema saarka Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed oo 30 bisha ka qabsoomi doonta duleedka magaalada Arcade iyadoo la filayo in maalmada bari ay soo gaaraan magaalada Laascaanood wafdi oo horkacayo Boqor Burhaan Boqor Muuse iyo salaadiin kale iyaguna ka imaan doonta gobolo badan oo kamid ah dalka oo ugu horeeyaan salaadiinta dhaqanka ee gobolka Cayn iyo sidoo kale salaadiin iyaguna ka soo jeeda gobolka Sool oo ka qayb gali doonta dhamaantood caleema saarka Suldaan Mustafa Maxamuud Awseed Axmed Jaamac telefishinka caalamiga ee Kalsar garoonka gol yeedhay ee magaalada Laascaanood